caqabadihii ku soo maray shalay ama kuwa ku haysta maanta waa kuwii aad kaga sheekayn lahayd marka lagu weydiiyo su'aashan. hayaankaagii nololood nooga sheekee. beryaha ka mid ah waxaa jiri jiray boqor ku noolaa magaalo uu maamuli jiray. kadib maalin ayuu go'aansaday inuu soo jimicsado oo socod u baxo. intii uu socodkiisii ku guda jiray wuxuu ku soo baxay waddo aad u weyn oo qof kastoo magaalada joogaaba mari jiray. waddadii wuxuu dhigay dhagax weyn, isna wuxuu ku dhuuntay ama isku qariyey geed u dhowaa waddada. waddadii waxaa soo maray wasiiradii ugu magaca waaweynaa ee la shaqayn jiray boqorka iyo boqortooyadaba. waanay eegeen, kadibna socodkoodii ayay sii wateen iyagoo isku leh boqorkani waxba uma qabto magaalada. saacado kadib waxaa waddadii soo maray nin yar oo beeroolo ah, sitana sallad khudaara. kadib ninkii intuu dhigay salladii ayuu dhagixii riixay kana qaaday waddadii. meeshuu dhagaxa ka qaaday wuxuu ku arkay kiish lacaga iyo warqad ay ku qoran tahay, caqabadii waddada waad ka leexisay. imise jeer ayaynu iska dhaafnaa ama ka baqnaa caqabadaha inaga hor yimaada innagoo aan garanayn macaanka ku hoos jira.